halkan waa deegaanka Singaleer oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo qiyaastii 45 kiiloomitir ayay wuxuu jirtaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa ku nool dadyow aad u tiro badan kuwaas oo isugu jira beeroqodoto iyo dad kale oo reer guuraa curashada roobka deerta iyo fatahaada webiga Juba ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen nolosha dad badan oo ku nool deegaano dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo sida deegaanada Werkoy, Singaleer iyo deegaanka Baarsanguuni. Deegaanka Singaleer waxa uu ka mid yahay goobaha ay saameeyeen fatahaada webiga Juba. dadka deegaanka oo goobihii ay ku noolaayeen iyo guryahoodii ay biyo ka galeen ayaa dumarka iyo caruurta ula cararay meelaha taaga ah ee laamiga biyuhu ay dhulka ka sareeyaan wax ka badan 2 mitir awgeed waxayna ku gudbeen doomo macmil ah oo ay farsameysteen qaar ka mid ah dadka deegaanka Singaleer oo aan la kulanay ayaa isticmaalaya waxyaabo macmil ah si ay biyuhu u dulmaraan oo ka mid ah dadkii oo dagayga la gudbo dadkii gudbiyaan oo dagayga meesha oo macnaha lagu gudbo macbilka doonta macbilka dadkii beeraha ka soo barakaceen oo iska dhibaataysan oo fasalkii oo beeraha ugu yeelay ama ilmaha ku hal lahaayeen oo ka go'ay biyaha roobka iyo biyaha webiga ayaa ka gooyay maxaan u baahanahay martida sharafta leh noo imaatay dawladana waxaan ku codsanaynaa Jubbaland inay wax noo qabtaan si dhaqso ah degdeg waa dhibaataysanahay waxba ma haysano meel cidla ayaan taaganahay laamigowgiis ayaan deganahay waxaan hadda saaranahay doon macmil doon maaha waa caag oo gacan ku sameeyay anaga aan sameeysanay markaan wayne doon iyo wax anaga markaan wayne awood aan ku sameeysano ilaahay maxaa noo qadiray in caagan dad aan ku soo tagno walaalo hal caag isii saliid ka dhamaaday adii hal caag isii isku kabano oo aqligayna ayaan ugu gudbihaynaa ilmihii saasaan ku soo badbaadinaa hadda laamiga noo joogan welina fasalkii macnaha oo ilmihii oo ku reebi lahayn nawaago ilmihii waxba uma hayno ilmihii anaga waaba iska hor imaasanahay nimayo hadda wax noo qabanaysin hadda waxba hana dubina ayo wax noo qabta barakaatu waa aniga odayga oo ma aragta beelaha Werkoy Singaleerka oo kamid ayaan ahay dadka biyaha fasaahada soo barakaciyay marka aad baan u dhibaataysanahay dhibaato aad iyo aad u xun oo u baahan in baahidana hayso oo nologu soo gaaro ama cabasho aan u dhiibanahayna waa baahi aad iyo aad u adag waayo xalay ku afar waxaan barin laamiga gowgiisa baan ma roob aan aga asheerna ma qabno aniga caruurtayna dhilmaama qaar kamid ilmaha ay maanta gaari intaan saarna ay Kismaayo u dirna dhibaatadaas waxa way kanaacadii oo inta ku cunto ilmaha annagan meeshan ku go'doonsanahay bahasha hadda aan saarana waa caag annaga gurmad u sameeysan inaan ilmaha iyo wixii qalb meeshan naga jiray inaan ku soo qaadana aan isku caawinahay in ma aragtay maamulka Jubbaland iyo inta kale mas'uuliyiinta limid ah in ma aragtay wax ay noo qabtaan ay naga soo go'an baahida nahaysa inay si degdeg ah ay noogu soo gurmaan biyahan ma biyihii roobka kaliya mise waa fatahaad webiga iyo fasaahad way wala biyaha roobka waxa nooga daran biyaha fasaahad kuwan nagu soo socdaan ka sii daran badarkii waa ka soo dhaxbaxnay guriga caawa ugu soo sokaysa malay kaliya cunna aan meesha ka baxsan kiilo bariis guriga nooga ma jiro gaajaan haysaab gaajaan bad sakaraad u nahay bashaan daawadayaal hadda waxaan joognaa goob ka mid ah halka laga raaco doomaha macmilka si ay isaga kala gudbaan shacabka deegaanadan Singaleer sida hadda idin muuqatana waxaan raaci doonaa doon macmil ah oo ay sameysteen dadka deegaanka kuwaas oo inta badan ay isaga kala gudbaan deegaanadii awal ay ku sugnaayeen oo ay hore beer ugu lahaayeen laakiin xilligan ay ka soo barakaceen oo ay soo degeen goobo kale oo laami ugu dhow si ay halkaas noloshooda ugu maareeyaan goordhow ayaan bixi doonaa waxaan saaranahay hadda doon ka mid ah doomaha macmilka ah oo aan doonayo inaan aagan kaga gudbo si aan u soo indhiindheeyo guryaha iyo beeraha ay biyuhu saameeyaan daawadayaal hadda waxaan ka soo degnay doontii macmilka ahayd ay sameysteen dadka degan deegaankan oo ay isaga kala gudbayeen fatahaada uu sameeyay webiga Juba hadda waxaan ku sii jeednaa goobo kala duwan oo ay saameyn xoogan ku yeesheen roobabkii kala duwanaa iyo fatahaada webiga Juba uu sameeyay goordhow waxaan aadi doonaa sida idin muuqato aan mari doonaa halkan oo aan loo marayo goobaha ay degan yihiin dadka xilligan biyaha ku dhex jira si aan u soo booqano oo xaaladaha ay ku sugan yihiin aan u soo ogaan Faadumo Qaasin Qoori waxa ay ka mid tahay dadka beeraleyda ah ee uu saameynta ku yeeshay fatahaada webiga iyo biyaha roobka
waxaana biyuhu ay baabi'iyeen dhammaan dalagyadii uga baxay beeraha halka guryahoodiina ay biyo xoog leh ka galeen. beeraleyda ahayn beera biyo roobku buu noo gooy hadda beeraha dhacdameen ku dahaan ba usoo kornasaan wixii waxa ku waxyeeshana biyo naga qaadeen yaa bac ma haysano sandaru ma haysano dhilmaayo hadda waxa dawladda ku cuskeynayna meno bacooshi noo keento sandaru noo keento raashinka ta gadaal nas maro sandarwida iyo bacooshina noo daro xagee hadda hooy idin waxaana laamiya raashinka dhibaato waa jirta guriga oo dhib qabnaa aan xareera dhamaayna saana tarkeedbo hadda dibata sokor wixii waa nool soo dawladda noo qowlaha noo qabato dhowr sano iyo 6 bilood ma beerahan aan falay marka beerihii kalka markii oo gurigooda uu soo dhawaaday biiba iga gooy wixii oo antabe oo aan ku beertay dhan biihii bay dhaxyaalaan bir lagu soo baxsanay intaan ban soo bixinay maanta intiina way hilaawi la kulay magaalada hadda uma qaadi karna biihii rafaadiyay hadda meeshii hadda aan deegaan hadna aan qarabno laamiga way bacna ma haysano geediyaal ban soo dhiganay wax oo hadda aan ku saarnayna male dawladda waxaan ka codsanaynaa inay noo keento bac shanjarwo iyo busto iyo waxaan rabnaa hungurina ma haysano maamada si idin sheegto way alan qareeran cabayna wax kale aan haysana maleyna marka dawladda walaalaheena waxaan ka codsan doonaa in oo anaga alaabtaas noo keento meeshan kana ayaan ku rafadnay habeenkii waa ku rafadnaa maalintiina roob nahay beeraha biyaa naga galay ataa meel ku asheerna hatee ma haysana bacna hatee cuntuna saas way waxaan ka soo qaaday male ani beerta maama waxaad ka mid tahay beeraleyda aan ka mid ah dadkan dhan isku meel aan nahay maxaa idin saameeyay marka oo ma fatahaada wabigu uu sameeyay mise waa roobkii daayo kaliya fatahaadii hadda ibna soo haysaa roobkiina hadda beeraha ka kacay waa kan biyo ma arkaysido ilaa cod meesha ma ogeedal soo surturi markano xagga maanta wadalaamiga qarkiisa meesha wax ku soo surturi waxaan ku saarayna hatee malaha roobkan soo socda cawdu bacanka sheeray malaha dalagii aad beeratay gabi ahaan buu burburay waxba kama hay roobabka lixaadka leh ee deerta ee ka da'ay deegaanada dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo ayaa waxyeello soo gaarsiiyay dadka ku nool tuulada Baarsanguuni iyadoona 13 guri ay dumiyeen roobabka halka 9 neef oo arina uu roob ku dilay sida uu noo xaqiijiyay gudoomiyaha deegaanka Baarsanguuni Maxamed Rooble Xasan saameyn waa jirtaa ma badna laakiin adiga dhowr iyo 10 guri oo kala duntay 9 neef oo ari aan laga warqabin ay ku dumeen oo ku dhimatay shacabka degan deegaanadan ayaa waxa ay dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ka codsadeen in gurmad xoogan lala soo gaaro dhammaan deegaanada kala duwan ee dawlad goboleedka Jubbaland ee saaran jiinka webiga Jubba ayaa waxa saameyn xoogan ku yeeshay roobkii deerta iyo fatahaada uu sameeyay webiga Jubba oo gabi ahaanba baabi'iyay dalagyadii kala duwana ee halkan ku beeranayeen xasan yuusuf maxamed shafad yare raadiyaha iyo TV-ga dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland deegaanka Singaler gobolka Jubbada Hoose.